sidaad wararkaba ku maqlaysaan afaafka hore xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya waxaa ka dhacay iska horimaad iyo qaraxyo xoogan oo xilligan laga maqlayo rasaastooda. Cabdirasaaq Shiino ayaa hadda ila soo galay stuudiyaha isla markaana ilgaar ku hayay dhacdooyinkaasi iska horimaadka. Cabdirasaaq waxyaabay ugu muhiimsanaa maxaa kamid ah? Wata Cumar aad baad u mahadsan tahay. War haddana soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in weerar lagu qaaday madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan kooxo hubeysan ay ka soo weerareen dhinaca degmada Boondheere ilida xigta ee madaxtooyada. Warar soo dhacay waxa ay sheegayaan in qarax uu dhacay, sidoo kale iska horimaad ayaa la maqlayaa. ilaa hadda waxaan la xaqiijin karin qaabka ay wax u dhaceen, hase yeeshee wararka inta aan ku guda jirnaa ayaan idinku soo deyn doonaa. Cumar, haddaad maqlayso sidee wax u dhacayaan saacadan aad ila hadlayso? hadda waxaad moodaa in xogaa xabadu ay yara degtay, ilaa iyo 3 qaraxna way dhaceen. halka aan ku suganahay waa wadada 15 May ayaa waxa ahayd meesha ugu adag markaas xabadaha ugu badan ay ka dhaceen. si dhab ah looma qiyaasi karo dhimashada iyo dhaawaca meesha ka dhacay, laakiin waxa meesha ku hordamay waa ciidamo. shacabkuna inta badan meesha waa ay ka kala tageen oo wax dhaqaaqaya ma jiraan, inkastoo goor dambe oo waqtiyaha laga joogo 15 daqiiqadood ay gurmad ku yimaadeen ciidamada isugu jira kuwa xoogga dalka iyo kuwa AMISOM oo ka soo galay dhinaca Florence iyo dhinacyada xagga iyo suuqa wardhiga xaggeeda ka yimaadeen. kuwaas ayaa markay soo galayaan dagaalku waxa uu noqday mid markaas si la xaasaday, inkastoo haatan ay muuqateen xabadihii ay joogsadeen qaraxyo waaweyn oo dhacay kadib. sidaas daraaddeed ayaa haatan waxay u muuqataa in xaaladdu degan tahay. laamiga oo dhan waxa jooga waa ciidamo iyo baabuur tiknika ah. Cumarow, ma heshay kama jiraan askari walbaana waxaad moodaa inuu meel ku jiro, kaabkana uu farta uu ku hayo. Cumar, lama ogaan karo dhibka iyo dhaawaca markaas meesha ka dhacay dhimashadu intay tahay. waaya Cumar, hadday maqlayso meesha aan ku jiraan ku sii jiri karin, balse qaybaha dambe ayaan ku soo gudbin doonaa markii aan la xogta. waaya Cumar, intaadan ka bixin adigoo aad u mahadsan, meesha la galay ama dagaalka uu ka dhacay xogteeda ma heshay mase maqashay wax rasmi ah oo lagu kalsoonaan karo? dagaalku qaabka uu ku bilowday inta la ka tawada timid sababta khudbada masaajidka ayaan ku jirnay. wuxuu ku bilowday dagaalku qarax weyn ayuu ku bilowday oo ka dhacay dhinaca afaafka 15 May. qarax weyn oo ka dhacay ayuu ku bilowday dowladda xigay xabado yar yar oo si xoolo ah isu dhaafay qaraxyo ayaana xigay. waxayna markii dambe muuqatay markii si dhab loo firay in dagaal fool ah meesha uu ka dhacay, inkastoo dhinacyada markaas meesha isku hayay aan si dhab loo xaqiijin karin cududooda inta ay la egtahay, balse ciidamada xoogga dalka iyo kuwa ciidamada AMISOM haatan soo galay ayaa dhammaanba deegaanka oo dhan haatan isku wada gadaamay. wax dhaqdhaqaaqi karaan haba yaraatee ma jirto, lamana ogaan karo Cumarow dhimashada iyo dhaawaca intay gaarayso. iminkana waxaa mar kale stuudiyaha soo gala Cabdirasaaq Shiino oo si gaar ah ula socday dhaqdhaqaaqyada iska horimaadka ka dhacay afaafka hore ee xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. Cabdirasaaq, maxaa soo kordhay? watahay Cumar, sad dhageystayaasha aan u ballan qaadnay daqiiqadba wixii soo kordhay ayaan soo gudbinaynaa inagoo si kooban dhageystayaasha ugu sheegayna. sidaan hore u sheegnaba madaxtooyada ayaa maanta weer lagu soo qaaday. markii hore qarax ayay ka bilaabatay, iska horimaad ayaa xigay, qarax kale ayaa dhacay. intaasi kadib intaa oo dhan waa soo gudbinay. hadda wararka soo cusboonaaday ayaa waxay yihiin in goobtii iska horimaadka iyo qaraxyada ay ka dhaceen dhaawacyo dadkii ku waxyeeloobay laga soo saarayo, kuwa oo la geynayo isbitaalada magaalada Muqdisho. inta ayaa soo korortay. aad baad u mahadsantahay. waxa ummadda Soomaaliyeed ogeysiinayna meel kasta ay dunida ka joogto inaan idin hayno web design raqiis ah, web hosting raqiis ah. qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliya oo danaynaya ama shirkad leh ama danaynaya inuu internetka ka sameeyo lacag, waxa shirkadda www.disoweb.com idin design gareynaysa sistemo aad ku heli kartiin ama aad ku kasban kartiin inaad ka sameeydiin lacag sida Google-ka iyo Yahoo-ga iyo Bingo iyo meel kale oo badan. waxaan kale ummadda Soomaaliyeed ugu bishaareynaa inaan idin sameey doono mobile apps oo ah system cusub oo mobilada sida Android iyo apps-ka maan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto. waxaan kale ugu bishaareynaa inaan u hayno qofkii danaynayo in uu helo wax la dhaho SEO oo danaynayo inuu search engine-ka yimaado Google-ka, Yahoo iyo Bingo markii laga raadinayo alaabaadkiisa oo kale sida Soomaaliya oo kaleeto ama Somali shop inaan number 1 u keeni karno. waxaan kale ugu bishaareynaa dadka shirkadaha Soomaaliyeed ee isticmaala Facebook-ga inaan keeni karno numberka koobaad ama aan heli karno ilaa 20,000 oo like ah oo dadka follow gareynayaan. marka fadlan haddii aad danaynaysid nala soo xiriir. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.